waxaa la yiri saddex ka adag saddex ka adag baa la yiri intaana barnaamijka guda galin sheerta like-ta iyo follow-da inta waa inoo muhiim waa yahay Soomaalidii hore ee xikmadda iyo aqliga u saaxiibka ahayd iyo murtidu ayaa waxay yiraahdeen saddex ka adag saddex ka adag sir lillahi ka adag sixirna yaasiin ka adag seven xunna saqaawe ka adag bay yiraahdeen waa tahay aan kugu celiyo saddex waxa la yiri saddex ka adag saddex ka adag sir lillahi ka adag seven xunna saqaawe ka adag sixirna yaasiin ka adag waa tahay Soomaalidii hore ee xikmadda badnaa ee qalbi nadiifka ahaa ee saafida ahaa waxay aaminsanaayeen amaba ay tahay sir inay lillahi ka adag tahay waxay yiraahdeen sir lillahi ka adag oo qofka sirta iyo dabinka iyo xumaanta iyo dhibka iyo godka iyo hadimada ku qodo hadii aad lillahi tahay ood qalbi saafi tahay ood Allah dartii lillahi u tahay adiga ayaa ka guuleysanaya ugu dambeyn oo lillahida ayaa guuleysanayso markale waxay yiraahdaan lillahi iyo laqdabo islama gasho sidoo kale waxay yiraahdaan god khiyaanaha qodin hadii aad qodana ha dheereyn adiga ku dhici doontida ma ogide saadarteed waxay aaminsanaayeen amaba ay tahayba in aadan cid qayaanin in aadan sir cid u maleegin in aadan cid xumaan u maleegin hadii aad maleegtana ood xumaan iyo sir qofka xumaanta iyo sirta iyo dhibka iyo dabamaryada iyo dabinka mar waliba dhiga in laga guuleysto oo qofka lillaahida ah ee daacadda ahi uu mar waliba guuleysto ayay aaminsanaayeen waa tahay tan labaad waxay yiraahdeen sixir yaasiin ka adag oo waxay aaminsanaayeen dadku quraanka ayay aaminsanaayeen qofka hadii quraanka lagu tufo wuxuu aaminsanaa inuu ku caafimaadayo qalbigiisa quraan ku qaboobayo waana siday tahay oo ilaah ayaa inoo sheegay in uu quraanku dawo yahay sidaa darteed waxay yiraahdeen sixir yaasiin ka adag hadii sixir iyo balaayo iyo dhibaato iyo xumaan lagu maleego oo quraanka ilaahay lagu tufo ee quraanka waxa weeye lagu afuufo in sixirka iyo jinka iyo shayaadiintu ay baxayaan sidaa darteed waxay yiraahdeen sixir yaasiin ka adag oo yaasiinka ayaa ka adag bay leeyihiin malaha quraanka ayaa ka adag waa tahay tan saddexaad waxa la yiri seven xun saqaawe ka adag saqaawaha waxa weeye ninka deeqsiga ahi ee gacanta furan ee wax bixiya ee lagu soo tashta ee la isla sheega ayaa la yiraahdaa saqaawe waa tahay marka ninka saqaawaha ahi ee deeqsiga ahi uu seven xun ku dhaco ee waqtiga ciilo ee xoolaha ka dhamaadaan ee hantida waayo ee geel uu ka dhamaado ee uu lacag waayo ee uu faqriyo ee ma garanaysaa dhulka uu tago wuu fashilmayaa bay yiraahdaan qofka saqaawu marka uu fashilmayaa cid waliba masaakiin oo ku soo hiran jirtay qaraabadii u imaan jirtay dadkii isaga ku soo hiran jiray dadkii deeqsinimadiisa yaqiin waxa weeye halkii deeqsinimada ayaa ka baxayso sababtoo ah qofkii wax uu bixiyo iyo wuxuu gacanta ka dhiibo maba haystaba qof aan waxba hayna wax ma bixin karo sidaa darteed waxay yiraahdaan seven xun saqaawe ka adag waayo waqtigu mararka qaar sibuu ku ciilayaa sidaa darteed waxay yiraahdaan seven xun ka adag bay yiraahdaan waati ay oran jireen maxay danu ciishay wiilo dulqaadii laayay sharafo dadkuna doqon moodayaan adigoo haldoor ah adigoo ninkar ah adigoo horeey ah adigoo hormuuda markuu waqtiga iyo sabanka iyo waayaha iyo xilligu ay ku ciilaan waxa tagaysaa meel hoose ha cawliito doqon iyo dabaal iyo qof aan waxba ahayn ayaa ka sara marayo sababtoo ah sabanka iyo xilliga ayaa ku ciilay oo waxa weeye ku hiilin waaye Soomaalidii hore waxay ahaayeen kow dad aaminsan lillaahida dad nacab xiqdiga iyo xumaanta iyo xanta dad ka saafi ah ka nadiif ah xiqdiga iyo xumaanta iyo xasidka dad ka nadiif ah ayay ahaayeen sidaa darteed waxay aaminsanaan lillaahida mar waliba inay guusha raacayso sidoo kale waxay aaminsanaayeen diinta islaamka quraanka ilaahay soo dajiyay ee ilaahay u soo dajiyay inuu daawo yahay in ay ku dawoobayaan oo qofka mar waliba waxay aaminsanaan jireen halkii isbitaal iyo dhakhtar iyo meel loo ordi lahaa in quraanka la saaro oo 4% ka lagu siiyo mar dheero sidaa darteed qofkaana isaguna wuu aaminsanaan
ahaan jiray quraanku dadka saarayana way aaminsanayeen inuu ku caafimaadayo sadarteed dadka quraanku boqolkiiba boqol way ku caafimaadi jireen sidoo kale waxay ogaayeen ninka hal doorka ay ee halkarka ahay ee bulshada indhaha u ahay haddii waqtiga uu ciilo in hacaw iyo qofliita uu ka sara marayo waa sida haddaba ay tahay waa tahay haddii intaan aad inala joogtay aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkana waa in aad 2 iyo 3 qof aad sii gaarsiisaa